Assalaamu calaykum. Waxaynu eegaynaa qaabka cuqubadu ay u dhacdo. In badan waxaad maqashaa hebel cuqubaa ku dhacday oo laga wado dhibaatooyin uu geystay baa laga jarayaa, ama dhibaato waalidkii geystay ayaa ubadkii laga jarayaa oo cuqubaa dadkaa ku dhacday baad in badan maqashaa. Bal waxaynu eegaynaa diimihii inaga horreeyey iyo qisaskii. Intaynu dib u eegno waxyaabaha aynu ka faa'iidayna ayaynu eegaynaa. Si kasta oo qofku dulmi u sameeyo isu qariyo, maray ahaataba ilaahay wuu ka jarayaa qofka daalimka ah. Waxaan kaa codsanayaa subscribe inaad taabatid iyo gambaleelka oo sheergaraysid oo walaalaha kalena khayrka la wadaagtid. Waxaa jirtay Nabi Muuse xilligiisii ayaa Nabi Muuse waxa uu Ilaahay weydiiyey su'aal ah: Ilaahayow, sidee baa dadka daciifka ah ee masaakiinta ah qofka xoogga leh markuu dulmiyo sidee xaqooda uga soo qaataan? kadib Ilaahay baa waxa uu yiri subxaanahu wa ta'aala, waxaad tagtaa togga halkaasa galabta oo bal fiiri sida dadka xaqa loogu kala qaado ee cuqubadu ay u dhacdo. Nabi Muuse waxa uu aaday meeshii Ilaahay u tilmaamay oo biyo saa u qulqulayaan oo dadku ay yimaadaan. Meel u dhow ayuu ku gabaday oo bal waxa meesha ka dhacay ee Ilaahay u soo tilmaamay iyo cuqubadu say u dhacdo ayuu fiirinayaa oo sugayaa. Meeshu waa cidla. Cabaar markii uu joogay oo isleeyay talow maxaa dhici doona, nin faras fuushan oo xoog badan oo raggan dagaalama ah ayaa meeshii yimi. Dharkii buu iska bixiyey, wuxuuna ku qubaystay biyihii buu cabbay, faraskiisii buu ka waraabsaday. Kadibna meeshii ayuu iskaga hulleelay oo faraskiisii ayuu raacay oo wuu tegey. Laakiin meesha wuxuu ku ilaaway suun weyn oo ay uga buuxday lacag oo dahab iyo fiddo ah oo markaan la isticmaali jiray ayuu meeshii ku ilaaway. Wax yar kadib waxaa yimi wiil dhalinyaro ah oo yar oo ari la jooga oo arigiisii wata. Meeshii buu yimi, arigiisii buu ka waraabsaday, biyihii buu ku qubaystay, wuu cabbay. Cabaarna warafkiisii ayuu ku ciyaaray. Kadibna wuxuu arkay ninkii meesha waxa uu ku ilaaway. Kadibna wixii markuu arkay ayuu qaatay. Waxaa ka buuxa dahab iyo dirham iyo fiddo iyo dinaar, hanti aad badan. Aad buu u farxay wiilkii, farxad daraaddeed wuu ooyey. Hantidaasi say u fara badnayd. Kadibna wuu iska tegey. Wax yar kadib wiilkii yaraa markuu iska tegey oo cidina arkin, waxaa yimi oday weyn. Odaygii ayaa sibraarkiisii ka dhaansaday biyihii oo cabbay. Kadibna meeshuu iska fadhiistay isagoo daawanaya biyaha quruxdooda iyo meesha greenka ah. Waxaa soo noqday ninkii dahabka iyo lacagta meesha ku ilaaway ee faraska watay. Wuxuuna u yimi oday meesha jooga. Odaygii buu ku yidhi, alaab halkan aan ku ilaawa ma aragtay? Ma arag buu yidhi wiilkaygiyo, waxa aad sheegaysid ma arkin anigu. Kadibna wuxuu war waad aragtay alaabtaydii keen. Wuuna xanaaqay. Kadibna wuxuu mooday inuu isagoo alaabta ka qarsanayo. Odaygii luquntuu seef kaga jaray. Meeshiina odaygii wuu ku dhintay. Nabi Muuse waa yaabay. Wuxuu yidhi, Ilaahayow, ninkii xoogga badnaa ee faraska watay wuu dulmiyey odaygii miskiinka ahaa oo muu qaadanin wuxuu ku eedeynayay ee uu ku dilay. Wiilka yarina hanti uusan lahayn buu meesha ka qaatay oo iska tegey. Ilaahay baa waxa uu yidhi, ninkan odayga ehel la dilay hadda ka hor ayaa wuxuu si qarsoodiya u dilay ninkan faraska wata aabihiis, lamana ogeyn. Laakiin hadda ayaa wiilkii ninkii uu dilay isaga oo aan ogeynba inuu yahay ninkii aabihii dilay. Laakiin si kale ayuu kaga goostay. Wiilka yarna lacagta qaatayna aabihii ayaa ninkan faraska wata ee xoogga badan u shaqeeyey. Kadibna markuu shaqadii 20 sano u shaqaynayay ayuu xoolihii uu ku lahaa ka inkiray, wuuna dulmiyey, wuuna eriyey. Sidaas ayaa wiilka yari wuxuu ku qaatay hantidii aabihii laga dulmiyey ayuu ka qaatay ninkii wax dulmiyey wiilkiisii. Odayganina ninka dilay wuxuu dilay ninkii awalba aabihii dilay. Mid waliba midka kale xaqiisii wuxuu ka goostay isagoo aan ogeyn inuu xaq ku leeyahay. Laakiin Ilaahay caadila ayaa cuqubo mid walba kii kale ku keenay oo xaqiisii kii lahaana ku siiyey, kii kalena kaga jaray. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.